dhibkana wuxuu ka yimid dhinaca Soomaaliya arrin ka dhaxayso dawladdii federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa saameynaysa marka waxaan oo maqla oo maartay Mandera arkayaan dad wasiiriina iyo madaxweyne ku xigeenah ayaa degan hotel Mandera ku yaalo ciidankii Buulaha oo degna oo Jubbaland waxa lagu sheegay waxay joogaan Buruburu xuduudkii Kenya ay ku dhex jiraan marka arrin halis waaye Mandera dib ay ku sugan yihiin laga yaabo in maartay ciidankaasi kan Buulaha joogo kan Mandera fadhiyo in ay isku dhacaan marka nabadgelyo Mandera ayaa dib ku taagan ma ogolin dhulkaan in maartay laga dhigo meel maartay soo dagaalo waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya iyo nimankan joogaan oo Cabdirashiid Jannaan kan wasiirka leeyahay Mandera lagu sheegay Mandera joogo inuu ka baxo magaalada in ka baxo dadkii taageerayna haday tahay dawladayna inay ka baxiyaan meel ay geey karaan hageeyano laakiin laga saaro Mandera ma ogolin marna dhulkaan in laga dhigo meel maartay dagaal ka dhacay oo maartay anaka dib loo geeysan doono dadweynaha reerna waxaan leenahay madaxdiina anaka waan taariikhsanahay marna dadkanay wayna ka qaadina aan dhahna marka laga saaro waxaan leeyahay marka dawladda Kenya inay taageersan tahay sheegaya waxaan ka codsanaynaa sharciga adduunka ma ogolo dad hubeysan inay ku soo dhulka soo galaan oo ku joogaan haday soo galaan in maartay laga qaado hubka laga qaado laajiin noqdaan hadii asalna si rabana asalna wax la soo qaado hal si Nairobi hal geeyo laakiin meelaha say xuduudka laga fayo ma ogolin waxaan leenahay ma inay ka baxaan degdeg Mandera ka baxaan